Dr. Fayrander Kumar Baul, danjiraha cusub ee dowladda Hindiya u joogaya dalkeena oo warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo gaarsiiyay dhambaal iyo salaan uu uga siday dhigiisa iyo ra'iisul wasaaraha Hindiya. Hindiya iyo Soomaaliya waxa ay wadaagaan xiriir dhinacyo badan oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi kan ka dhaxeeya labada dawladood. Marka laga yimaado waxaa jira xiriir qoto dheer muddo dheerna soo jiray oo ay wadaagaan labada bulsho ee Soomaaliya iyo Hindiya. xiriirkaasi oo ku saabsan dhinacyada ganacsiga, waxbarashada iyo adeegyo caafimaad oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka helaan dalka Hindiya. sidaasi si la mid ah muwaadiniinta Hindiya ee jooga dalkeena ayaa hela fursado shaqo oo fara badan waxayna ka howlgalaan gobollo kala duwan oo jamhuuriyadda ka mid ah. yoolka dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ah in sare loo qaado fursadaha muwaadiniinteenu ay ka heli karaan dalkan. taasi ayaana gundhig u ah hagaajinta cilaaqaadka iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la wadaagto dalweynaha Hindiya. danjiraha cusub ayaana soo bandhigay qorshihiisa ku aadan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaan iskaashiga dhaqaalaha, maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada. Cabdirashiid Maxamed Xaashi, agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka, ayaa warbaahinta u sharaxay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjiraha cusub ee dowladda Hindiya u fadhinaya dalkeena. danjiraha cusub waxa uu ugu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay dhambaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkiisa. waxaa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay u muujiyeen. waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaanna waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay safiirka cusub guulaha shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay wadajirka uga xaqiijiyeen dib u dhiska dalka, xoojinta dimuqraadiyadda, dib u heshiisiinta, adkeynta midnimada, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa.